بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها سورة الشمس halkan ka galena waxay kamid tahay iyadoo quraanka makiga ay kamid tahay ilaahay wuxuu ku bilaabanayaa dhaar bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay magaciisa ku bilaabanayna allah naxariista caamka ee mid khaaska naxariista allah wuxuu yiri washamsi ayaan ku dhaaranaya qoraxdii iyo duxaaha barqankeedii baan ku dhaaranaya يعني qoraxda markay soo dheeraato oo iftiinku uu soo baxo iftiinkaas iyo qoraxdii labadaas ayaan ku dhaaranaya wal qamar dayhi baan ku dhaaranaya ida talaha ida tabi'a markuu raaco ayaan ku dhaaranaya dayhi waay wan nahaari maalintii baan ku dhaaranaya ida jallaha markuu faydo maalintii qoraxdii uu faydo ama maalintii hameenkaas oo kala oo maalintii saa u cadeeyo koonkii oo dhan u cadeeyo والليل بان ku dhaaranaya ida goortii yakhshaha uu daboolo maalintii oo yani iftiinkeedii oo dhan eber uu ka dhigo markaa oo carradii dhan saa ku madoobaato wasamaa'i baan ku dhaaranaya samadii iyo wama banaha walladii banaha kii dhisay waa Allah subhanahu wa ta'ala samada ajaa'ibta badan aayadaha ilaahay kamida allihii dhisaan ku dhaaranaya waa asaga wal ardi dhulkii baan ku dhaaranaya iyo wama tahaha walladii tahaa kii fidiyay oo dhulka ajaa'ibta badan makhluuqaadka loogu talagalay yantaficu inay ku intifaacaan bini'aadanku ayaa ku dhaaranaya buu yiri Allah subhanahu wa nafsi nafan ku dhaaranaya nafta yani nafka soo laabakin bini'aadankii halka ugu muhiimsan naftiyan ku dhaaranaya iyo wama sawaaha walladii sawaaha kii simay oo naftaas abuurideeda iyo sida meelo badan quraanka looga sheekay ayaan ku dhaaranaya buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala naftaas iyo kiisima ku dhaaranaya qad aflaha oo faalhamaha ku hanuuniyay naftii ku toosiyay fujuraha faajirnimadeedii tusiyay iyo taqwaha cabsideedii iyo faajirnimada labadaba yani dariiqa alkhayr wa dariiqa shar وهديناه نجدين دي أحد سومرين وكلا واي أي الله كلا عديه مركز إلهي وحير قد أفلح وحليباني هدبا من مدبا ليباني زكاها طهري نفتيس قفكي نفتيس طهري طاعة إلهي كظهري دينت إلهي كظهري إيماني عمل صالح كظهري قفكاسي واليباني في دنياه وفي أخراه آخر ذي سيادون كيسا بواليبان الله نقدر وقد خاب وحانه هوغي من دساها يعني كيد قرية نفتيسا ومارتي يعني وحويا لوميي باديي وضدي خيركا كل شيء شرط يحمانتا دحدغي ننكاسنا وخساري الدونكيسي آخر ذي سوا خساري الله نقبت باديو مركا waxaa la galayaa qisadii marka nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii in yaro kamid ah la tusaaleynaya rabbi wuxuu yiri kadabad waxa beeniday thamuud reer thamuud baa waxay beeniyeen saalix nabiyullaahi saalix ay beeniyeen bitaqwaha qooqeedii ku beeniyeen bisabab taqwaha yani tuqyaankii kibirkii iyo qooq ay la yimaadeen ay ku beeniyeen oo kaas ku xambaaray inay rasuulka ilaahay beeniyeen id waqti bay beeniyeen in bacatha uu baxay ashqaha yani thamuudkii ugu dhordasiga badnaa ugu xumaa uu baxay oo hashi inuu boqno gooyo uu u baxay maashi maarta aayadda ahayd mucjizada ahayd waqtigaasay beeniyeen waay oo faqaala uu yiri lahum iyaga uu ku yiri markaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ku yiri naaqatallaahi ay daru naaqatallaahi hasha ilaahay ka taga وسقياها ورابكيد كتغا هفرقلننا ورهشا إلهي فرها كقاده لباتو قيسننا إلهي وحير مركا فكذبوا وابينيا والرسولك إلهي وابينيا فعقروا وفيلقوين هشينا وفيلقوين هشي أيضا هنا وفيلقشارين فدمدم ربي وحو قدبالي عليهم كركودا ربهم ربي قد وحو قدبالي العذاب واي بذنبهم بسبب ذنبهم ذنب جود السبب تيسي قالين أي عذابك الله الضبالي فسواها والسمي والرلك والله السمي أيك يرون والباب إيوه يعني عذابك الله الغسمي ولا يخاف ربك عبس مايو عقباها فعل ذاس
oo lagu suubiyey qowmu saalix yacni wax alla cid u raacanaysa iyo cid uga cabsanaya haba yaraatee ma jiraan waay ma jiraan cid u raaca kartaana ma jirto. bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu leyl halkaan ka gelayna walleyli idaa yakshaa iyaduna waxay ka mid tahay qur-aanka makiga ayay ka mid tahay. bismillah ilaahay magaciisaan ku bilaabanaynaa arraxmaani naxariista caamka naxariista alraxiimi naxariista khaaskana naxariista. rabbi wuxuu yidhi subxaana walleyli baan ku dhaaranahay hameenkii idaa yakshaaha markuu daboolayo hameenku markuu daboolayo oo maaragtay maalintii uu daboolayo qarinayo markaasaan ku dhaaranayaa. wanahaari maalintii baan ku dhaaranayaa idaa goortii tajallaa uu caddaado waay yacni tajallaa uu soo faydmo oo mugdigii wixii oo dham uu maaragtay khalqiga ilaahay uu bannaanka dhigo soo caddeeyo kaasaan ku dhaaranayaa. waman mid baan ku dhaaranayaa khalaqa abuuray addakara labka iyo wal unthaa kan dhadigaa kii abuuray waay yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa labada jinsiba abuuray oo min bani aadama wakayrihim labadaba allah abuuray ku dhaaranayaa. intaas markuu ku dhaartay buu yidhi alleh inna sacyakum dadow sacyigiinu camalkiinu la shataa mid kala tagsan weeye la mukhtalifun waay waa iskhilaafsan yahay yacni camalkiinu waa kala tagsan yahay oo waa iskhilaafsan yahay. qola hadday wanaagga u socoto qolaa xumaanta u socota, qola hadday daacada ku dadaalayso qolaa sharta ku dadaalayda, qola hadday maaragtay daacada u taagan tahay qolaa xumaanta u taagan. sidaasaa laysu khilaafsan yahay wala shata allahu akbar qolaba meelay u socotaa waay laysma raacsana oo waxa weeye camalkii yacni waxa weeye qofna naaru u shaqaysanayaa qofna jannu u shaqaysanayaa qof wuxuu naftiisa inuu badbaadiyo u shaqaysanayaa qofna naftiisa inuu halaagu u shaqaysanayaa waa la kala tegayaa waay. marka ilaahay wuxuu yidhi inna sacyakum dadow camalkiinu la shataa mid kala tagsan kala fog weeye. marka kala fogaantiyaa laguu sheegayaa wuxuu yidhi rabbi fa amaa man ruuxii acطaa dhiibayaa layidhi acطaa ay badala waaye xoolihiisa qofkii dhiibay wattaqaa cabsaday oo ilaahay ka cabso oo maxaarimta ilaahay ka cabsaday wixii rabbi ka reebay ka cabsooda iska ilaaliyey oo wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd yacni waxa weeyaan yacni wacdigii ilaahay uu ballan qaaday rumeeyey oo waxa uu bixiyey ciwadka ilaahay siinayo ama towxiidkii ilaahay rumeeyey qofka sidaa yeelay fasanuyasiruhu waxaan u fududaynaynaa lilyusraa tii fudaydka badneed waay yacni xaaladdii fudaydka badnayd ayaanu u fududaynaynaaho infaaqa fii sabiili alkhayr wax ku bixiyo camalka taacada ilaahay maarata uu suubiyo ayaa loo fududaynayaa maarata ayaa loo fududaynayaa kaasa fasanuyasiruhu waxaan u fududaynaynaa lilyusraa tii xaaladdii fudaydka badnayd. wa amaa man ruuxii bakhila bakhiilay oo maaragtay inuu wax bixiyo diiday oo ka bakhiilay xoolihiisa inuu bixiyo fii taacati illaah uu ku bixiyo qofkii ka bakhiilay wastakhnaa deeqtoonaaday oo yidhi maaragtay anigu cid aan u baahanahayba ma jiro tiisiyuu ku deeqtoonaaday wuxuu yidhi cid aan u baahanayo cid aniga wax iga qaadi karta midnaba maba jirto oo wakadaba beeniyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd kelimatu tawxiid aakhiradiisii wanaaggii laga helayo infaaqa fii sabiili illaah jannadii iyo wanaaggeedii beeniyey qofkii sidaa yeelay fasanuyasiruhu kaa waxaan u fududaynaynaa lilcusraa tii culayska badnayd waa alkhasratu alcusraa ayaan u sahlaynaa waay yacni asbaabu alkhayr ayaa ku adag wanaagga ku adag markaasaa wuxuu suubinayaa arrimo maaragtay xumaantii iyo balaayadii kale ayuu la harjeedayaahoo taasaa xumaantaa u fiican waa xumaantaa u fudud wanaaggu waa ku culays khayrka aadi maayo ma khayrka wax ku bixi haddii la yidhaa waa ku adag tahay sharta haddii loogu yeero wax kasta waa bixinayaa asaga dhan markaas kaasuna waxa weeye saasaa loogu fududaynaya dadkii waa la kala tagsan yahay midaa wadadan ku socda midna wadadaas ku socdaa inna sacyakum la shataadey waaye macnaheedu. wamaa yuqnii mana ka deeqayo canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisu waxba u tari maayaan xoolahaas uu ku bakhiilay waxay u tarayaan lama arko
idaa goortii taraddaa uu antaroorsado oo naarta ku dhaco maalintaas xoolahaas uu meesha ku aruuriyey waxay u tarayaan lama arko waaye. inna calaynaa korkeennuu ahaaday buu yidhi alle lalhudaa hanuunku korkeennuu ahaaday wey. yacni an nubayina dariiqa alhudaa dariiqa hanuunka inaan caddayno oo baadida ka caddayno annaka nalaka rabaa waay. annaka korkeennuu ahaa annaka caddaynayna. wa ina lanaa annaka inoo sugnaatay lalaakhirata tii dambeyday iyo waluulaa labaduba annaka iskale waa aakhira iyo adduun annaka iskale. yacni kullu maa fi alaakhira wa kullu maa fi ddunyaa natasarafu bihi kayfa maa nashaa sidaan doonaan ugu tasarufaynaa. cidna la leh iyo cidna la maamushaa ma jirto waay. fa andartukum waa idiin degay dadow naara naar baan inkaga digay taladaa ee gubanaysa holcaysa naar holcayda oo holoc badan ayaan inkaga digay dadow digtoonaada is ilaaliya waay. naartaas ka ilaaliya. laa yaslaahaa geli maayo naartaas ila alashqaa kan dhurdasiga badan ee khayrlaawaha ah ee gaalka ah maahane mid kale kuleelkeeda ku guban maayo. alladii maaragtay shaqigaasoo kadaba beeniyey xaqii ka beeniyey waay. kadaba xaqii beeniyey markuu u yimid oo watawallaa jeestay daacadii ilaahay ka jeestay khayrkii ka jeestay iimaankii ka jeestay wanaagga inuu wax ku bixiyo ka jeestay. yacni kaas ayaa naartaas maahan cid kala geli maydo. allah inaga badbaadayo. wasayujannabu waa laga fogeynayaa haa naartaas waa laga fogeynaya laba la yidhaah al-adqaa kan cabsida badan waay. taqiga cabsida badan leh kaas waa laga mutaqiga cabsida badan oo kufriga iska ilaaliya asbaabtiisa ka fogaada midkaas waa laga dhowraya waa laga ilaalinaya. alladii taqigaasoo yu'tii bixinaaya maalahu xoolihiisa bixinaaya yatasakaa xaalu isdahirayo isagoo isdahiraya oo ilaahay darti ula jeedoon riyaa iyo istus midna aan ula jeedin xoolihiisa bixinaya fii sabiili alkhayr ku bixinaya fii mardaati illah ilaahay ridihiisa ku bixinaya. wamaa liaxadin walxaal maa liaxadin aysan qofna u sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin nicmo aysan ugu sugnaanin tujzaa ee la gudo waay. yacni wax amaalahoo cid ku sheeganaysa iyada aanay jirinin ayuu maaragtay bixinaya xoolihiisa dadkii siinaya dadku siinaya amaalba kuma leh. qofka maskiinka ilaahay dartii buu wax u bixinaya. qofka dhibaytasan ilaahay baa raalli ka wax ku bixinaya. meesha ilaahay raalli ku yihi wax ku bixinaya. markaas qofkaasaa naartaas ka badbaadaya waay. waa laga fogeynaya. xoolihiisa u bixin maayaa la yidhi ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiisa wejigiisa dalabkiisa maahane wax kale u bixin maayo. rabbigii alaclaa saraynta badnaa waay. rabbigiisa sareeye wejigiisa maahane ilaahay darti maahane wax kale u bixin maayo. xoolihiisa ilaahay darti buu u bixiya. camalkiisa waa ilaahay darti. daacadiisu waa ilaahay darti. wax kastaba ilaahay darti ka u qabanaya ayaa naarta laga fogeynaya. ilaahay wuxuu yidhi wala sawfa waqti dambe ayuu yardaa raali noqon doonaa. wala sawfa yardaa yani waqti dambuu raali noqon doonaa. markii jannada la tago oo aakhiro la tago ayaa lagu maamuusi doonaa. fii jannaati alfirdowsi yaa lagu maamuusi doonaa. jannadii ilaahay baa la gey doonaa. maalintaasuu raali noqon doonaa. ilaahay kuwii raali laga dhigo oo meeshaa lagu maamuuso oo lagu karaameeyo. allah haynagu daro mu'miniintoo dhan muslimiintoo dhan. ilaahay xaqa allah hayna waafajiyo. dariiqii nebigana allah haynagu toosiyo. diinta ilaahayna allah haynagu sugo xataa nalqa allaha yowma alqiyaama ilaa ilaahay aan kala kulmayno wahuwa raadin cana in shaa allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.